waxaan halkan uga faa'iideysanayaa dhowr shay oo ka muhiimsan anigu barnaamijka aan waday ama ganacsigayga oo ismool ah. horta alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaa inoo furmay barnaamij qiimo leh oo anigu aan ahay meel aan ku cusbahay iyo dad aan ku cusbahay iyo bulsho aan ku cusbahay iyo barnaamij hadda iyo kow ii ah. waxaan bartay dad aad u qiimo badan, dad wanaagsan, bulsho ganacsiyeed, saaxa ganacsiyeed baan ku soo biiray. alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxay ii ahayd aragti ka duwan aragtiyadii hore aan qabay, ganacsiga ka qabay. dadku sida laga sheego marka banaanka ganacsiga laga joogo, marka maxaan ku iraahdaa haddaan dhalinyaro nahay aan anagu isku wareysanayno ganacsi wadanka kama jiro. wax badan baan arkay oo wixii hore aan qabay ka duwan. alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan ka rajaynayaa qolyihii barnaamijkan ka soo shaqeeyay in horey loo sii wadi doono sida ay maama Astur sheegtay, sanadkiiba 2 marna loo qaban doono. barnaamijkan uu noqdo bilow wanaagsan horeyna u socda. inta markii laga yimaado anigu waxaan ahay dadkii ka aflaxay Janay workshop. khayr Allah siiyo macluumadeena wadanka banaankiisa ka timi. waxaan ahaa dadkii muddo 3 bilood ah wax ku bartay oo xirfadda bartay. wax soo saarna la yimi oo product soo saaray. productigaygana aan bartay muddo yar oo 3 bilood ah. wax soo saarkaygu ama wax barashadayduba ay ahayd 3 bilood kaliya. xirfadna aan ku bartay, product iyo wax soo saarna aan ku bartay. sida idin muuqata waan soo shaqaystay iidkii, anoo soo shaqaystay waxaan idinla joogaa goobta. xirfadii aan bartay waan ku soo shaqaystay, maanta dhan waan soo shaqaysanayay alxamdulillah. haddana waxaan rabaa in aan dhalinyarada uga faa'iideeyo wadanka in horta la iimaansado. marka koowaad wadanku shaqo uu leeyahay. qoliyaha maxaan ku iraahdaa sare oo dawladana waxaan u sheegayaa oo barnaamijkan uga faa'iideysanaya in dhanka xirfadda naloo xoojiyo. intaasoo kun oo arday haddii laga wada baxo iskoolaadkii, jaamacadihii, dee wasaaraddu intanun bay qaadan kartaa, cusbitaalkana intanun buu qaadan karaa. intaasoo ummada ma wada qaadan karo. dadkii waa in lagu jiheeyaa xirfad in la soo saaro. dadkii waa in lagu jiheeyaa in la baro farsamadii gacanta. dadkii waa in lagu jiheeyaa in la tuso inay gacantoodan ay wax ku qabsan karaan.